bishaaro war farxad leh ayaan idiin hayaa dadweynow haddaad doonayso aroos adigoon israfaadin alaab iyo wax badanna iibsan oo aan isticmaalin kharash badan adiga iyo gabadhaada aayaroo kaalay ku naso guri aad loo hagaajiyey oo indhihii arkaa aysan ka jeedsan karin kaa ayaan idiin hayaaye fadlan amaahiya dhegihiinna iyo araggiinna labaduba si aad u aragtaan gurigan ugu talagalnay aroosyadan casriga ah kow ilinka hore guriga laga soo galo guriga gudihiisa markaad soo dhexayso waxaa ka hor imaanaya dhir green ah oo ku wanaagsan ildogsiga darjiin aad u qurux badan oo si heer sare ah loo hagaajiyey oo aad ku nasato galbihii iyo baakinka gaarigaaga guriga waxa uu ka kooban yahay master bedroom oo ah qolka koowaad ee jiifka kaasoo ay taallo sariir aad u qurux badan oo loogu talagalay lamaanaha qolka fadhiga oo qalabkiisu u dhammaystiran yahay islamarkaana ah waase qolosha martida oo ka kooban 2 qol kuwaasoo loogu talagalay asxaabta la joogta lamaanaha iyo inta soo booqanaysaba qolka qadada ama dininka hadba sida loo yaqaan oo la dhigay kuraas aadan ku daalayn ee markiiba qaadaya 8 qof iyo in ka badanba jikada oo ay yaalaan dhammaan qalabka looga baahan yahay halkaasi waxaana halkaa ku yaala gas cooker iyo waliba electric cooker hadba kii aad adigu doonayso guriga dhammaan waxa ku xiran wifi oo xawaarihiisu sareeyo qolosha jiifka iyo fadhiga dhammaan waxa ku xiran AC ama air condition hadba sida loo yaqaan hadaba gurigaasi waxa uu ku yaala xaafadda Bulamzuri agagaarka Xaashi Hardware and Electrical Appliance ee magaalada Garissa ama fadlan ka wac telefoonka shaashada kaaga muuqda